Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee codkan dhegeysan doonta. Waxaan ka codsanayaa weliba insha allahu inay sii faafiyaan. Waa 17 bisha Juun 2017. Waa habeennimo, waa Ramadaan. Waxaan helay warqad ku saabsan sir aduu markaa ka kashifantay dowladda Sacuudiga. warqadani waxa weeyaan waa waqtigii waxa la qoray 2013 waxa qoray safiirkii Ethiopia u fadhiyay dalka Sacuudiga oo lagu magacaabo Ahmed Abdul Aziz ayaa lagu magacaabaa. waqtiga dalka Sacuudiga taladiisa waxa hayay boqorkii dhintay boqor Cabdallah. marka safiirku waxa uu warqadan u diray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga. marka wuxuu ka codsanayaa wuxuu u diray dalab u diray dalabkaas oo ahaa dalabka uu wasiirku diray ayaa ahaa in ma aragtay wuxuu ka dalbaday macnaha wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayuu ka dalbaday in Soomaaliya 5 loo qaybiyo Sacuudi ahaanna aan caawino Kenya iyo Ethiopia danteena sidaas ku jirta ayuu leeyahay. marka waxa tagnaa muranka badda ee u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya. waxa uu leeyahay macnaha badan la isku haystana waa inaan Kenya caawinaa sidaas anaga macnaha danteena ku jirta. Soomaaliyana waa inaan 5 u kala qaybinaa oo federalismka macnaha ay 5 waaxood noqotaa. marka hadalkani ma ahayn ma aragtay hadal hadda cusub ama dhagaha Soomaalida ku soo dhaca ama social media soo gaara, laakiin warqadan aan helnay baa waxay tahay warqad cadeyn ah oo qoraalkii barnaamijkii Anwar Cishqi oo uu fashilay Wikileaks uu fashilay uu sheegay oo dalka Djibouti sirtii laga helay iyo barnaamijkan baa isdaba socda. marka warqadan hadda la helay waana warqad markii dad aqoon-yahanaa oo Soomaaliyeed aan tusnay oo waliba ma aragtay aragti dheer oo Carabiga iyo waxaasna si fiican u yaqaanay warqadaha ay qoraan waxa ay sheegeen inay tahay warqadani warqad xaqiiqo ah oo jirta. marka Carabiga si fiican uma aqaano run ahaantii warqadana kulleeyay waa iska warqad la qoray waa dileemi kartaan. marka haddii aan isku dayo عربي وأنا أخريه وحليه هاي صاحب السعودي المكي الأمير سعودي الفضيلة حفظه الله وزير الخارجية علينا أن نتعاون. هذا وقيبتها هراء وقيبت كينيا بدي مرنكية وكغه الله وحليه هاي علينا أن نتعاون مع كينيا علينا أن نتعاون مع كينيا نزاع الحدود البحري بين الصومال وكينيا لصالح قضيتنا. انت هروح وحلي بدي marka la isku haystay ana qadiyadeena ku jirto leeyahay. انت دنبنا wuxuu yiri تقسيم الصومال إلى 5 ولايات ومع العلم أنه لا يوجد من الصوماليين من يعارض فكر النظام الفدرالي لذلك أن نتعاون مع إثيوبيا. qaybta dabana saas ku leeyahay. marka dadka Soomaaliyeed waa inay ma aragtay Sacuudigu halka uu ka joogo ummadda Soomaaliyeed ama waxa uu la maagan yahay kula walba ogaayeen oo inay ogaadaan waayahoodana ay laabta ku haystaan. warqadan insha Allah waan faafinaynaa haddii Ilaahay ilmo website badan baan u dirinaa social media si fiican baan u soo dhexgelin doonaa haddii Ilaahay ilmo. waxaana aan uga mahad celinayaa Cabdirasaaq Maxamuud Faarax oo warqadan soo gaarsiiyay. adinkana waxaan ka codsanayaa inaad share gareysaan barnaamijkan aan soo duubay inaad sii faafisaan haddii Ilaahay ilmo. warqadan ayadoo toosan ma aragtay idin soo dhiganaa website-ka cagaarweyne.com. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa inaad ogaataan Sacuudigu inuu cadow yahay islaamnimo iyo waxaas aan la isku xeerin oo nimanka ma aragtay ilgaar la iska ilaaliya cadowna inay yihiin waa in la ogaadaa cadowkan ugu xun waliba inay yihiin. aad baan idin salaamaya.